السلام عليكم. اسكو soo noqoto wanaagsan channelka channelkini Shani Beauty waano shukriya maanta waxaan igula soo noqday ina hortini dhaho waa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin waad soo badateen maasha Allah familiga asxaabta ku soo biirteen Shani Beauty maxay hadan waan iga mahad celinayaa jazakumullah khairan gabigiinaba soo dhawaada walaalayaal mida kale su'aalaadi weydiiseen su'aalo bar aan jeclaan lahaa inaan isagiyo aan faahfaahiyo aan ka jawaabo barna caadi ahaan waaban ka jawaabay yaan ka filaa su'aalo kala dahaysana soo tabiya haddaba maxaa la dhahaa sheekadii wiilka haddaan kusoo noqono pilotkii maxaa la dhahaa qaranka Djibouti aanu maxay hadan toddobaadkii maanta toddobaadkan oo dhan la isdhex waday ilaa 3 cisho 4 cisho howshiisii in ka badan ba way socotay anagu waxaan kala soconay barta YouTube-ka ay Djibouti badan kaga hadlayeen waxaa dhacday maxaa la dhahaayay adi su'aalo badan ay keentay sheekadani waa sheeko maxaa la dhahaayay Djibouti adiga Djibouti-ga anaga wax nagu cusub maaha kolba qof dee adiga dhibaato saas ay haysato waanu aragnay way jiraan shacabkuna ay kaga sheekaystaan maxaa la dhahaayay baraha bulshada taasoo dadkaasoo leh qabiil walba iyo dad walba qoomiyad walba leh ayaa jira wax jadiida maaha maxaa la dhahaayay dad badan baraha bulshada isla daba socda isla dhex socda sheekadaas waa sheeko ay dawladdu ka dambayso ay ugu tala gashay way dhici kartaa maadaama waxaan rabay dadka aan Djibouti-ga ahayn ee baraha bulshada dhinaca Djibouti-ga la socon inaan nii sheego ni xasuusiyo ayaamsa usii dhaweyn usii fogeyn waxaa dhacday ina Djibouti-geena maasha Allah tabaarakallah iyagoo isku duuban iyagoo maasha Allah 20 kun oo qof gaaraya ayaa la samaystay baraha bulshada group wax loo yaqaano meel iskugu tagaan kolkaas waxa laga doodayay amba ay dadku ka cabanayeen nin walba uu soo bandhigay oo maxay hadan korontada sida ogtiin Djibouti waa qaali aad bay u qaali tahay waa wax aad dadka uu saameeyay dhaqaalaha Djibouti uu saameeyay dadka shacabkana uu saameeyay oo aad iyo aad looga cawdo taniyo muddo badanba taasay dawladuna leeyihiin adigu wax badanaan qabanay mee waxay qabteen adiga halka maxaa la raadayay shacabku wali kuma aan maalinanba ma arkayaan kolka noloshana imika adduunka way ka garanaya waxaa jiray crisaskii dhacay sidii 2008kii oo noloshu qaali noqotay ka bilow 2008kii 2006 maya imikadan aan taaganahay Djibouti waa dal wax kastaba u soo galaan waxna nagu samaysana ma jiro noloshu aad bay u qaali tahay cirka isku shareertay nolosha Djibouti ka qaalisan nololahan adduunka oo dhan korontadu waa ka adduunka ugu qaalisan sida ahaan shicibkii reer Djibouti oo u kala harin maxay hadanay aanan u kala harin oo qonolo loo eegin oo qoomiyadan loo eegin oo ku lacag leh iyo ku ana lacag lahayn iyo ku maxaa la dhahaayay ku iska caadi mooyaan ku iska faqiira intuba isku raaceen oo waxaa jirtay dawladii ay maxay hadanay wax yar ay iyaduna ay kalkii dambe ku qasbanaatay inay odagii xakumay directorkii inuu isu soo taago baraha television-ka uu ka hadlo uu kalkii dambana dawladda halka maxay madaxweynuhuna uu lacagtii dadka wax ka dhimo halkii faktuuradii uu wax ka dhimo taasoo guul ahayd taasoo 2 jeerba guul ahayd anise ila eegtahay 2 jeerba guul bay ahayd mid waxay ahayd Djibouti-geena badanka horta Djibouti waa inaan wax yar niiga sheego walaalahayga Soomaaliyeed waxa weyn waa dad u bisil politiga amba siyaasadda way bisil yihiin way garanayaan way yaqaanaan
way fahmaan wayna la socdaan tu adduun ka dhacda iyo tu wadankeena ka dhacdaba reer Jabuutigu kama maqna way u bisil yihiin way la socdaan taasaa keentay inay maxaa la dhahayay badanka la dhaho ay dowladeenu wax u eeg sidan diviser pour mieux régner waxaa la idhaahdo afrasis kala jajabi saad u wada maamuli kartid bay ka dhigantahay af Soomaali ay reer Jabuutiguna way yaqaanaan kalka maxaa la dhahayay tii oo laga guuleystay oo jajabistii lagaga guuleysto oo dadkii is urursadeen ay garteen danahooga jira ay idhaahdeen koranku nagu qaali ayna ku guuleysteen maasha Allah tabaaraka Allah nisay la egta aad bay ku guuleysteen wax yar daha guuleystaan inay badnaan wixii adi loo waxeeyay mixeerkoogii way doontaan way soo dhaysteen kolka imika waxa saddex socda sheekadan Fuaad la soo saaray waa si dadkii loo ilowsiyo loo kala jajabiyo qolo hadana dib loogu kala jajabiyo way iska dhici kartaa waxa weyn kolka politic la yiraahdo siyaasad kolka la yiraahdo strategy waxa jira waxyaabo ay isticmaalayaan oo jira si ay dadka u xukumi karaan ay u wadi karaan ay wax kasta si iyagu rabaan dadka wadanada xukuma u noqon karto ay shicibkuna u ahaan karo kuwii la hogaamiyo nan maxaa la dhahayay dhagiyo inda lahayn oo qofka wuxuu yiraahdo ku daba socda waa iska dhici kartaa waa fort possible waa wax dhici kara haddaba dhibaatada saas maxaa lagaga bixi karaa kala jajabiska hadday dad isku yimaadaan baa la kala jajabinayo imika waxaa jiraha inaan niga ilaawin haddana dad baraha bulshada kusoo qoraya qolada madaxtooyada madaxweynuhu qoladiisa ayay qoladii inankii Fuaad ay guryihii ugu dhacayaan jajabinayaan alaabtoodii waxyaabo la isdhaxwada waa maxay haadeen waxaan oran lahaa shicibkeena waa ka aqli badan tihiin saa reer Jabuuti 120 jeer ayaa tusteen inaad dad aqli la tihiin inaad dad politiga siyaasad u bisilaa tihiin inaad dad maxay haadeen wax inaan la isku kiindiri karin inaa walaala tihiin inaa cisho milix nahay inaan maxay qolo kale lahayn inaa bas danteena u eegano danteenu waa maxay kalkaas inaga guud ahaanteena waxa weyn shicibku waxa weyn wadan hadii uu jiro waa inaan sameeyno maxaa la dhahaye sida waa pouvoir iyo contre pouvoir waa inuu jiro sida equilibre u dhaco waxa laga wada inaga shicibkeenu hadaba maxaa la dhahaa quwadan haysan karno waa maxay waa quwada xeerka adduunkan idil xeera kala wada maxaa la dhahaye hadii aan xasuusiyo waxa weyn halkan aan wadankana ku noolnahay waxaad ogaataan cadaanka dadkan cadaankii san inaguba u leena wax xun wax fiican wax tuuga wax dadka dhibaya uma iyaguna u leeyihiin meesha laakiin wax kali hata kala wada wadanadan oo dhan cadaanada oo dhan aan u soo ordayno aan nabadgeliyo weydiisanayno waxa weyn waa xeer baa ka qabto qofka hadii uu xeer ka qabaneyn waa sida dadkeenan imika Afrikada oo kale xeer wadanada xeer ma jiro qofkii lahaata pouvoir ka qabsanaya isagii wixii u dhawaaba qaadanaya wixii ana ahaa mas'uuliyadii iyo maxaa la rahaa maareyntii iyo xoogii oo dhan quwadii isaga qaadanaya kolka shicibku waa bilaa quwad ma hadli karaan oo dibaataysan yihiin waxaasi muxuu keenayaa inay maxay hadana dadkii ay faqirnimo dulinimo maxaa la dhahaye dadkii oo dhisnayn jismi ahaan aqli ahaan keenaysa oo hoos u dhaca noloshoodii oo dhan ay waxbad yahay noqonayso uu hoos u dhacayo kolka waxa weyn maxaa la dhahaye sid aynan waxaas u dhicin Yurubtan waxay sameeysan xeer ba dadka kala wada xeerkaas ayaala xeerkaas qofkiisa ku dooda annaga ajnabiga hadaa meel tagno oo qofka la kulano oo waji kala ka aragno waxaan idhahnaa xeer ma leedidina sadii la dhaqantid xeerku waa waxa dadka kala wada imika waxaad arkaysaa hooyooyin Soomaaliya oo u qaxootiyoobay wadanka Mareykanka iyagoo la aqra la aktub
haddana kolkay halkaa tagaan freedom to speech bay dhahdaan maamayaasheenu waxaa maxaa keenay waa waxa weyn waa qofkii oo loo sheegay inuu xeer leeyo uu xeerkaa ku maali karo maxay ahaydeen xeerku waa sida ahaan inaanu barano ay tahay inaa jaahilnimada xeerka naga hayso aanu ka baxno horta Djibouti mid kalena way jirto dhibaatadu jiro waxa weyn halka istuaq waxaa la dhahaa dhacdadii amba wixii aan soo marnay amba wixii uu ahaa siduu ahaa ayaa khalkhal laga geliyaa dadka kolkol oo maxay ahaydeen laga shaki geliyaa ay dadku isku qabsadaan hebelaa sii jooga hebel baa leh wadanka aytu waxaasoo kale waa inaan ka jaahil baxno aan barano waa inaan barano xeerarka sida maxay ahaydeen wadan siduu u socdaa awlaada ka ugu yar ilaa ka ugu weyn dadka waa inaan barano family ahaan inagoo gurigeena iska joogno hooyadii aabihii gabdhihii guriga kula galaya amba jaararkii amba asxaabtii waa inaa guriga leysbaro guriga horta ka baro jaararkaaga u tabi kolkaa waa inaan barano wadan siduu u socon lahaa wadanka amba ahaada dhaqaale amba ahaado politic ahaado siyaasad ahaato amba in soo socoto normalma waa inaan barano jaahilnimo waa lux aynagu aan qaadan karin run hadii la isku sheego jaahilnimadu waa shayga aan aad ugu dheereyno afrikaankeena oo dhan wadanada Afrika oo dhan waa halka odayga cadaankeeda hadii aad rabtid qof Afrikaan inaa wax ka qarsatid buu ku dhexri maadaama ma tagno ma akhrisano laakiin kabihii u dambeeyay maxay Jordanka iyo kii u dambeeyay maxay Nike iyo kii u dambeeyay dharkii waxaas xariifin baan ahay maasha Allah markadaas socota xariifin ana telefoonka maxay ga soo baxay xariifin aan nahay laakiin inaan madaxeeno faaruqsan jirkeena aanu hagaajino macna weyn ma sheegayso kolka waa inaan wax kasta baranaa jaahilnimada ka hortagnaa madaxeena buuxinaa oo suqtu aan xeerarka badanaa waa inaan barano halkaan u ka imanay oo sheekooyinkeena istuarkeena barano waa inaan barano wadan sida loo dhiso siduu u socdo waa inaan barano madaxweynuhu si loo doortaa amba waa shaqadiisu waa maxay hadduu shaqada intaa dhaafo inuu xeerkii isagina dhaafay waa inay bartaan ciyaalku waa inay bartaan ministeradu maxaa lagu minister muxuu yahay muxuu qabtaa si loo doortaa ayaa doorta madaxweynaha ku xigeenkiisa siduu u shaqeeyaa isaga si loo doortaa waa inaan barano maxay ahaydeen wixii kulli shay ayaa carab qofka Soomaaliga amba qofka reer Djibouti ee halkan ku jira dhageysanaya ee akhristay dastuurka wadankiisa waakii anigayga kula hadlay dastuurka wadankayga ma akhrin haddaba aadad aragtid dadkan Mareykanka oo kale way wada yaqaanaan dastuurka xeerkiisa ugu horeey freedom to speech bay qoranayaan hooyada imika qaxooti tagtay ayaa garanaysa iyo wiilka Soomaaliga imika tagay yaa garanaya inuu leeyahay maxay ahaydeen ku jirto xeerkaas ugu yaalo maxaa la dhahay dastuurka wadanka ay idina afka qaban kareen waxay yaqaanaan xeerkooga labaad dastuurku waa inuu qof walba hub qaadan karo iibsan karo iyaga dhigtay dadkooga awowyaashoodii hore wadanka dhisay baa u dhigay kolka dastuurkeena waa inaan barano saanu idhaahno may hadduu qofku soo maago tiraad may durwaagaygu saamaahin right-kayga maaha waa inaad iska qaban karno dadka waa inaan wax kasta barno macal asaf waxa weyn maxaa la dhahaayay dhibaatooyinka waa ogahay in qof walba subaxdii aanu kusoo kacayn wadankaas aan ku nooleeyo waxaasoo qof walba quudkiisii shaqadiisii iyo noloshiisa u ordaayo awlaad sugaysiyo faktuura ku sugayo dhibaatooyinkeenii kale ayna sayno mashquulinayso laakiin haddana waxa weyn inagu Afrikaan haddaan nahay gebigeenaba walaa Soomaali walaa reer Djibouti walaa cid kale luxka ma haysano maanta maxaa la dhahay jaahilnimo lacagta lagu goynaya ma hayno waa inaan wax baranaa maxaa la dhahay jaahilnimada waa inaan shicibka oo dhan caadi ahaanta waa inay la dagaalamaan jaahilnimada dadka wadanka xukuma
wadan kasta in xakuma waa ina jaahilnimada la dagaalamaan maxaa la dhahay si loola daba siyaabo kasta loola dagaalami karo waa ina la dagaalamaa waa inaan wax akhrisanaa waa inaan la soconaa waxyaabo badan waa inaan maxay ahayd inay fahano siduu yahay siyaasadu waan ogahay dadka badanka waa la nacaa halkan aan joogno dadku way nacaan waxaa jira dadaan wararka dhageysan dadaan waxa naga daawa siyaasadku odhanaya xitaa cadaanka way jiraan siyaasadu aad bay nolosheena meelo badan uga soo gashaa waanu ka wada sheekaysan doonaa waxaa nagu qasbay weeyaan inaan siyaasada u nuglaano oon barano waa ogahay dad badanaa ku odhanaya siyaasadani ma jecli waan ogaa waxa loo leeyahay ma jecli baska haddii aad yar dhex gashiba dhibaata kaa soo gaadhiso waa ka lagu caga jugleynayo la dhibaya dadkii ma tiraahday may waxaan xaq baan u leeyahay waxaan xaq ma lihi caadi ahaanta waa inaan saa sameynay ahayd macal asaf waxa weyn wadano yareero imika soo koraya dadkan anagu maxay hadeenay qarni idil ku dhaqmay xeerar isma barbar dhigi karno waa inaan in yar tallaabo qaadno aqoontu maaha dibloome iyo lasoo baxa maxaa la dhahaye shahaadooyinka adduunka dad adiga wax fahmi kara amba wax fahansan inaan keeni karno oo xaq iyo xaq darro kala garanayo sida xumaanta iyo wanaagana loo baro kolkaan yarnahay taasaan odhan lahaa soomaalina waxaan odhan lahaa walaalahayga soomaaliyeed maasha allah inankii fu'aad waad u kacdeen meel kastoo joogtaan sheekh iyo shariifa waa u kacdeen waad u soo heliseen waad ka hadasheen waxaad tirahdeen soo sii daaya insha allah inuuna laga aqbalo dowladeenu naga aqbashaan ayaanu baryaynaa ilaahay oo inankaas layska soo sii daayo xeerkiisa loo mariyo oo maxay shaqadiisii lagu celiyo oo wixii xeer u lahaayoo dhan la siiyo insha allah oo maxaa la dhahaa yani waxa waliba ii raacsanaan lahaa inaad maxay ahaydeen sheefkiisii qofkii sidaa u galay qofka noloshiisa saa ugu tumanayay bilaa xaquuq la-aan iyo xaq darro oon saa ugu tumanayay inaa isagana maxay ahaydeen xeerkiisa laga maro iyaan jeclaan lahaa oo u noqdo kuwa kale ee raba inay dadka shicibka saa ugu tuntaan u noqdo masalo ay dib uga laamid karaan insha allah waan jeclahay waan isoo salaamayaa sheekooyinkana waa inoo sii wadi doonaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu